إن شاء الله ماشي كتشب الدوران وأكوّل من الدوران والصومالي ورئيس الدولة ولا بدأ دقيقة حلقة سجود يكجاك هو نساري وحتى وربنا أرجع بحسابه قوة دبعته ده بومبونية قوة فريمه ده أوه كان سما أو قلادة يعني فريمه ده مقلان أما أي درب كده يلا يجو أما النفي يرحل على سنة أو النفي سلا أما هذه سكارة أي كود دبا kulanti waxaan daawadyaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal qodobada wararkeena maanta ku soo qaadanayna waxa kamid noqon doona wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Godax Barre oo si adag u hadlay isagoo ku tilmaamay in ay khiyaano qaran oo weyn ay galeen madaxweyne Farmaajo iyo waliba taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin gudoomiye ku-xigeenkii degmada Garasbaaley oo qarax lagu deemino iyo waliba sidoo kale gudoomiyihii dhalinyarada ee deegaankaasi Garasbaaley dowladana waxay nasiib daro ku tilmaamtay farka laga faafiyay ciidanka haramcadka ee ku aadanad wararkii maalmihii ugu dambeysayba la saddex mariyay isagoo wasiirka warfaafinta oo arintaasi ka hadlay iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor oo si adag ula hadlay warbaahinta xilli uu maanta ka hadlayay wararada ku soo badanaya deegaanada maamulkaasi ee Galmudug qodobadaas iyo waliba kuwa kale xiiso ayaan ku soo qaadanayna waa 19 bisha January 2021 daawadayaal waa maalmo Talaada faahfaahinta wararkaas hadaan ku bilownay wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre ayaa ka hadlay walaaca waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashooda ka maqan kuwaas oo sanad ka hor ay dawladdu tababar ugu dirtay dalka Eritrea Godax ayaana sheegay inay taarin aad u faalxun murugo iyo mas'uuliyad darro aan qiil iyo jawaab dawladda ka bixisay ciidamada tababarka loogu diray Eritrea la sheegay inay ka qayb galeen dagaalka gobolka Tigray ka dhacay waxaana hadalkiisa ku bilaabay arrin aad u faalxun murugo iyo mas'uuliyad darro aan qiil lahayn waxay walwal iyo walaac badan arrintan ku sii abuuraysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ubadkooda u hibeeyay inay difaacaan dalka iyo dalkooda waxayna caqabad ku noqon doontaa in la helo dhalinyaro mustaqbalka ku soo birtay ciidanka qalabka sida waxa uu sheegay in aanu jirin khiyaano qaran oo ka weyn dambiga la galay ummadda Soomaaliyeed oo dushooda uga tuuray madaxweyne dalka Mudane Cabdullaahi Farmaajo taliyaha NISA Fahad Yaasin wuxuuna hadalkiisa ku yiri ma jirto khiyaano qaran oo ka weyn waana arrin aad looga hari doonin buu yiri Fahad Farmaajo dambiga ay ummadda Soomaaliyeed ay ka galeen ayuu yiri wasiirka hore wasaaradda waxbarashada ayaana si adag u hadlay wararka maalmahan baa la saddex mariyay ku aadaneed in dhalinyaro Soomaali oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea la geliyay dagaalka ka soconaya gobolka Tigray kuwaas oo la dagaalamayay ciidamada TPLF ee dawladda dhexe ee dalka Itoobiya la dagaalamayay waxaana la sheegay in ka badan 357 askari ay ku dhinteen dagaalkaasi halka la sheegay in dhaawacyadu intaas ka badan yahay lagu soo celiyay gudaha dalka Eritrea arrintan ayaana ilaa hadda dawladda ma aysan soo dhigin wax cadeen oo muujinaysa in arrintan tahay mid been abuura isla markaasna ay tahay warar ku turkeetana waxayna dawladdu sheegtay oo kaliya in hadallada la saddex mariyay iyo warbaahinta qaarkood ay sheegeen inay tahay midaan waxba ka jirin iyadoo warbaahinta ogaal media dabagal ay sameysay oo ka ogaatay in wararka la sheegay in dhalinyaradaasi dhinteen ay tahay mid jirta isla markaasna dawladda aysan rabin inay hadda waqti xaadirkan ka hadasho maadaama xilli oo la doorasho ku jiro madaxweynaha dalka Mudane Cabdullaahi Farmaajo qaraxmiin oo saaka ka dhacay deegaanka Garasbaaley duleedka Muqdisho ayaa waxa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaankaasi Garasbaaley Cali Macalin gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka oo ay la saarnaayeen ilaalay ayaa lala egtay qarax miino nawaaxiga xabsiga ciidanka asluubta wararka ayaana sheegay in dadka dhintay uu ku jiro gudoomiyihii dhalinyarada Garasbaaley Cabdirashiid Dub qaraxyo miino ayaana ku soo badanay muddooyinkan ugu dambeysayba magaalada Muqdisho iyo duleedyadaba waxaana lala egtaa gaadiidka mas'uuliyiinta iyo ciidamada ay la socdaan al-shabaab ayaana kordhisay weerarada miinooyinka ay ka geysatay gudaha Muqdisho waxaana habeen ka hor qarax miino lala egtay gaari u lahaa wasiirka beeraha inkastoo aanu saarnayn xilligii qaraxa lala beegsanayay gawaarigiisa arrintan ayaana noqotay mid cabsi iyo walwal xoogan ay ku abuurtay mas'uuliyiinta dawladda xilliga ay safrayaan iyadoo tani noqotay mid inay ka gaabsadaan safarada aysan sheegeen qaarkood in aysan u baahnayn ama muhiimad u lahayn
wasiirka warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubay oo shalay booqasho ku tagay dhismaha ka socda wadada isku xirta Muqdisho Afgoy si weyn u difaacay ciidanka Haramcadka dowladda ay si gaar ah u adeegsato. wasiirka ayaa ugu horeynta warbixin ka dhigay taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcadka Gaashaanle Dhexe Farxaan Maxamuud Aadan oo ugu warramay xaaladda amniga iyo marxaladaha kala duwan ee dhismaha wadadaasi Afgoy ee soo martay iyadoo ilaa hadda aysan la soo gabagabenin. wasiir Dubay ayaa isaguna ku amaanay ciidanka Haramcadka sida ay ugu guuleysteen sugidda amniga wadadaasi oo marar badan weerar kala duwan ay kala kulmay kooxda Al-Shabaab. sidoo kalena waxa uu mahadceliyay dowladda Turkiga Qatar oo ku amaanay inay ku dhiiradeen dhisidda wadadaasi xilli ay hanjabaado kala kulmayeen Al-Shabaab. waxaa kaloo nasiib daro ku tilmaamay in ciidanka Haramcadka loo jeediyo eedeeno la xiriira boobka doorashada lagu muransan yahay wuxuuna ku sifeeyay ciidamo naftooda u hura shacabkooda. Dubay ayaana eedeymaha ciidamadaasi loo jeediyo ee ku aadan damaca dowladda federaalk ee doorashada ku tilmaamay dacaayad raqiis ah xilli ay madaxdu ugu sareyso dowladda lagu eedeynaya inay dana gaara u adeegsadaan ciidamadaasi iyadoo xilligan uu taagan yahay muranka doorashada ee dalka. midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa inta badan dowladda ku eedeeyay inay ciidamada sida gaarka u tababaraan ee Haramcadka ku adeegsato boobka doorashada. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor maanta la hadlayay warbaahinta isla markaasna ka hadlayay weerarada ku soo badanaya gobolada maamulkaasi Galmudug ay geysanayaan ururka Al-Shabaab ayaa si adag uga hadlay isagoo sheegay in aan laga hari doonin kuwa uu yiri in ay shacabka dhibaateeyeen u soo jeestay. wuxuuna Qoorqoor si adag sidoo kale ula hadlay warbaahinta uu sheegay inay yihiin kuwa buunbuuniyo marka ay qaraxyo meelo ka dhacaan ama Al-Shabaab meelo soo weeraraan isagoo sheegay inay taasi noqonayso mid aan loo sii dulqaadan doonin. uuna ku tilmaamay inay iyagu kala siman yihiin dhinaca Al-Shabaab isla markaasna ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan haddii ay ka waantooni waayaan waxyaabaha ku aadan wararka kutirkutaanka iyo weliba taageerada buu yiri wararka Al-Shabaab ee la xiriira in ay buunbuuniyaan marka ay weerar sameeyaan ama ay qaraxyo meel ka geystaan. hadalka Qoorqoor ayaana u muuqda mid uu hanjabaadyo ugu dirayo warbaahinta ka howlgasha gudaha deegaanadaasi Galmudug oo mararka qaarkood soo tabisa weerarada ay geystaan ururka Al-Shabaab marka ay dhacaan weerar inay ka geystaan gudaha deegaanadaasi. warbaahinta ayaana inta badan tabisa marka ay weerar geystaan ururka Al-Shabaab gudaha deegaanada. arrintan ayaana loo sababeynaya kadib marka Al-Shabaab ay hanjabaado u dirto warbaahinada maxalliga kuwaas ay ugu hanjabtay in ay xirayaan haddii aysan tabinin wararka ku aadan marka ay geystaan qaraxyo ama marka ay weerar meel ka geystaan. arrintan ayaana noqonaysa mid saameyn xooggan ku yeelan doonto warbaahinta maxalliga ee ka howlgasha gudaha deegaanadaasi iyadoona tani saameyn xooggan ku yeelan doonto gaar ahaan TV-yada gaarka ah loo leeyahay iyo weliba raadiyaasha qaar ee gaarka iyagana loo leeyahay.